بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال من البو عالم كاد كجوجتان كوسو دوادا ورka Soomaali Cable oo idin kaga imaanaya studiyaha magaalada Nairobi waxa xiligan u diyaaraan aniga Cabdullaahi Axmed Cali qodobada aad ku daawan doontaan kuwooda ugu doorka roona waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa xalay waxa uu casho sharaf u sameeyay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi banaabax looga soo horjeedo dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ilhaan Cumar oo ka tirsan xildhibaanada Koongareeska ee dalka Mareykanka ayaa waxa loo magacaabay xil muhiim ah qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goor dhow warka ku daawan doontaan ee u diyaar garooba balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah fure adeega Jeeb oo garaac xidig 810 fargees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto Jeeb adigoo isticmaalaya EVC Plus garaac xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna fargees adeega Jeeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaac xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna fargees xirmooyinka adeega qanciye halka dollar waxaad ku heli doontaa 1.5 GB shanta dollar waxaad ku heli doontaa 7 GB halka 10 dollarna aad ku heli doontaa 24 GB banaabax looga soo horjeedo dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho warkan waxa faafayntiisa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Ismaaciil Aadan Bariise banaabax looga soo horjeeday madaxweynaha waqtigiisu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ka dhacay degmooyinka Dharkiinley iyo wadajir ee magaalada Muqdisho dadka banaabaxa dhigay oo isugu jiray rag iyo dumarba ayaa watay boorar ay ku xardhan yihiin sawirka madaxweyne Farmaajo waxayna ku qaylinayeen sidaan qaar ka mid ah banaabaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in iyagu ay doonayaan doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana inuu dalka ka dhaco isbedel dhab ah waxaan u soo banaabaxnay nabad la'aanta na haysato oo dhibaatada nagu hayso oo 4 saac na dhibaysay aan ka soo banaabaxnay waxaan rabnaa madaxweyne cadaalad oo qabsado dalka shacabkana maamulo aniga fikirkaygu waxa ku cabiran yahay Farmaajo 4 sano oo na haystay anagu qabqabloonay eedaysaasay qofka weli ma fikirkaynu saas waa degmada Dharkiinley baa ka soconaa iyo degmada Jireeb assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh anta anaga nacnay shalay anaga soo dhaweyn maanta lama rabno bas waay waxaan ka filayna ma aanan keenin dadkii oo naga xiray maatadii oo naga laayay dadkii oo naga laayay 14 Oktoobar waa ogaadeen inta ku dhimatay waxa ka qabta malahan Ismaaciil Aadan Bariise telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa waxa uu xalay casho sharaf u sameeyay xildhibaanada maamulkaasi warkan waxa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyahayaga Liiban Laki madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaaw ayaa caaw waxa uu casho sharaf u sameeyay xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana casho sharaftan ka soo qayb galay labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar waxaana halka ka mahad celiyay casho sharafta qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Guudlaaw Xuseen waxaan uga mahadnaqayaa casho sharafti caawa oo noo sameeyay madaxweyne ilaahay ma taqaanaa ka abaal mariyo qiimiga iyo wanaaga iyo sharafka u haysa xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweyne waa ku amaanan tahay sida aad u qadarisay iyo mansabka aad ma taqaanaa ay ku joogaan xildhibaanada waana waxyaalaha hogaamiyaha saxda ah ee qiimiga wanaaga badan u haya xildhibaanadiisa waxyaalaha asaanta ah oo wanaagsan oo lagu gartay qayb ka tahay isku xirnaanta iyo midnimada iyo wadajirka dadkeena waxa qayb ka ah xildhibaanada iyo madaxweynaha isku xirnaantooda waxay qayb ka tahay isku xirnaanta bulshadeena wax weyn ayay noo tahay inaan isku xirnaano wadajirkeena iyo midnimadeena ayaa ah astaanta kaliya ee dowlad goboleedkeena Hirshabelle cusub ay ku gaari karto horumar ballaaran oo maanta meesha ay taagan tahay meel ka qiimo badan ay istaagi doonto waa ku sharfan tahay waa kaga mahadnaqaynaa qiimiga iyo wanaaga
maanta caawa aad noogu samaysay casho sharafka aad u mahadsantahay madaxweyne. Assalaamu calaykum. Runtii waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda goboleedka Hirshabelle oo caawa casho sharaf noo sameeyay anagoo baarlamaanka dowladda goboleedka Hirshabelle. Runtii uu ku mahadsanyahay madaxweynaha waxay noo tahay dhiirigelin aad u wanaagsan asagana mar iyo labaad iyo mar saddexaadba waan ka mahadcelinaynaa runtii casho sharafta aad ku wanaagsan oo caawa noo sameeyay. afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Daawud Xaaji Ciro ayaa asana dhankiisa wuxuu faahfaahin ka bixiyay casho sharaftan. caawa madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabe Xuseen ayaa wuxuu casho sharaf uu isugu yeeray guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. cashada caawa waxaa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meir Makaraan. kulanka cashada ay madaxweynuhu sameeyay ayaa ujeedkeedu ahaa mahadcelin oo ugu mahadcelinayo xubnaha golaha shacabka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. mahadcelintuna waxaa runtii ahayd maadaama howlo muhiim ah ay golaha shacabku ay qabteen ay ugu horeyso in madaxweynuhu uu ka codsaday baarlamaanka toddobaadkii hore in xubnaha golaha wasiirada sii shaqeeyaan ilaa uu ka soo magacaabayo xubno cusub ee golaha wasiirada ah. sidoo kale baarlamaanka wuxuu uga mahadceliyay caawa maadaama ay ansixiyeen miisaaniyadda 2021 ayay ku saabsaneed casho sharafta caawa madaxweynaha uu sameeyay guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle. iyaguna aad iyo aad bay madaxweynuhu uga mahadceliyeen oo guddoonka ayaa runtii mahadcelin iyagoo wakiilka ah mudanayaasha baarlamaanka u jeediyay madaxweynaha maadaama ay u mahadceliyeen madaxweynuhuna runtii sidaas ayaa la isku macsalaameeyay. Liibaan Cabdulle Maxamed Liibaan Lakiwan Somali Cable TV caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar. waxaa soo tagaya walaaca badan ee laga muujinayo hay'adaha dastuuriga ah ee waqtigoodu uu dhamaaday. warkan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Ayuub Aadan Xasan. waxaa sii kordhaya walaaca laga qabo ismareewaaga ka taagan qabashada doorashooyinka Soomaaliya kadib markii ay heshiis gaari waayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. haddaba waxaa dhamaaday muddo xileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo wali aan helin baarlamaankii iyo madaxweynihii bedeli lahaa. waxaana soo ifbaxaya cabashooyin ka imaanaysa shacabka Soomaaliyeed taasoo ay sheegayaan in musuqmaasuq uu ka dhex jiro dowladda dhexdeeda. xildhibaan Idris Doctor oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka oo ka qayb galay barnaamijka xulka wararka ayaa ka hadlay muddo xileed ka dhamaaday baarlamaanka iyo midka madaxweynaha. runta annaga xilkeena waa dhamaaday qodob dastuuri ah waaye qodobka 61 ah qoraaya baarlamaanka afartii san haday dhamaato inuu baarlamaanka la bedelo waayo. saas oo kale madaxweynaha waxa way qodobka 91 ayaa qoraayo oo dastuurka ah xilkiisu waa 4 sano haduu dhamaado inuu meesha baneeyo. markan waxaa jiro runtii waa dareemi kartaa doorashadii la rabay in la qabto doorashadii waxa waaye caqabado badan iska jiro diidmo badan jirto isfaham la'aan badan baa jirto khilaaf baa jiro beesha caalamka ayaa faragelin xataa ku hayso saa ka warqabtid waxaa jiray heshiisyo badan oo la soo galay Soomaaliya 1 2 3 ilaa Muqdisho la isugu yimaado haddana tiya socoto. waxaan dareemaynaa meeshii hadda ka hor waxaa jiray qodob oo baarlamaanka go'aan ku gaaray oo xukuumadda ay ansixisay madaxweynaha uu saxeeyay oo ahaa in hay'adaha haddii wax bedelo la waayo macnaha doorashadii macnaha baarlamaan bedeli waayo waxa waaye qodob saasaa jiray. mar wax laga weydiiyay in xukuumadda ay maareysay cudurka COVID-19 ayaa uu sheegay in isbitaalka Martini loo waayay 12 qof oksijiinka qalabka lagu xiri lahaa dadka. COVID-19 kan waa la socotaa waxa waaye hadda uu mar labaad u yimid wadankii xaalad adag lagu jiraa caawa 12 qof Martini ku jirto oksijiinta loo waayay waa nasiib darro. ani haddii wasiirka caafimaadka ahaan lahaa waa iscasili lahaa runtii waxa way 12 qof ayaa oksijiin loo waayay qeyladana la sameeyay hormuuda hadda u keentay waa nasiib darro waay. maalin ani guddigan ku jira COVID-19 ka waa u yeernay wasiirada waxay ka cabanaysay in dhaqaale ay sanaysanay. waxaan ognahay dhaqaale loogu talagalay Soomaaliya World Bank ay soo bixisay 137 milyan dhibic 5 ah oo loogu talagalay COVID-19 ka in maamul goboleedyadaas lacagtaas la gaarsiiyo wax looga qabto
may soo gaarin ay dhahday wax yaray sheegaysay 1 milyan wax la jiro marka waa nasiib darro waay in maanta 22 qof Soomaali oxygen loo waayo oo maanta maxaa la lahay ay hormud ay u soo gurmatay ayadoo dawlad ay jirto waxa waaye nasiib darro waay aniga haddaan ahaan lahaa wasiirka caafimaadka arintaas ay qabsan lahayd caqabadaas lacagtan ay jirto waa iscasiil lahaa sidoo kale xildhibaan Idriis ayaa ka hadlay cabashooyinka ay qabaan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya taasoo tilmaamay in wasaaradaha ay qaataan shaqaale cusub halka kuwii horena aysan wali waxba helin aad gabar iyo wiil wasaaradda warfaafinta u shaqeeyo oo wariyaal ah oo subaxii soo waa wasaaradda ugu shaqo badan waay subaxii qofka hadduu soo galo wuxuu ka soo baxaa 12 saac gulnay qaataan 10 sano joogaan 8 sano joogaan 6 sano qaara joog yimid aniga oo maxaa la dadka aniga aan matala waxay ii sheegeen shaqaala la qaadanay 30 qof oo shaqaala dad cusub la keen anagoo gulna qaadanayna u sabreyna shaqaala dawladda qaadatay wasaaradda maxaa la warfaafinta 30 qof oo shaqaala la qaatay waa nasiib darro waay waa corruption waay darada anaga waxaan ansixinay guddigii musuqmaasuq ilaa hadda waxa la rabay inay wasaaradahan ay baaraan corruptionka in la dagaalamo waay waa nooc kamid ah argagixiso waay ninka wax qarxinaya bombada dhigay waxa ka daran gabar 10 sano meeshaas gurno 200 ku qaadanaysay u sabreysay oo subaxiisa u gashay ilaa 12 saac ugu jirto korkeeda laga keeno nin qabiil Ayub Aadan Xasan Somali Cable Muqdisho hooyo aan haysan lacagta mashiinka lagu dhaqo kaliyaha ayaa waxa ay ku jirtaa xaalad adag waxayna dadka Soomaaliyeed ee wax haysta ay ka codsatay in la soo caawiyo waxa la kulmay warbixinta warkana magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyaha Ismaaciil Aadan Bariise digfeer baa la igu dhaqaa maalintii $35 waaye mar baan lacag la'aan dhowr jeer ka codsaday markay 2 bilood iyo siiyeen baa la igu soo celiyay waa la igu soo dalacay marka saa awgeeda ana codsada igu kaliftay islaamka aan awood waay haddaan lacag laanteeda iska helo dhaqnayga waa isaga samri lahaa wax kaadiya ma dhigo baalka la yiraahdo musqul ma galo xoololey ay ahayd oo aan cidna u baahnayn balse qadarta Allah oo haleeshay ayaa sabab u noqotay muddo 3 sano gudaheed inay ku ceeltoodo sabab la xiriirta qarash ku baxa dhaqid lagu sameeyay isbuuci 3 jeer kaliyaheeda hadda isbitaalka waa laga soo buriyay lacag laan awgeed waxayna halis ugu jirtaa inay gasho koomo maadaama aysan ka imaan karin kaadida iyo saxarada hooyo qadro ayaa ka sheekeynaysa xaaladda nololeed ee ku haysata magaalada Muqdisho hooyo macaani aniga waxa waaye muddo 3 sano hal sanad barkii baan baadiyo ku xanuunsanaa gobol oo gobol waliba fog oo galgaduud baan ku xanuunsanaa markaan xanuunsadayna waa la soo qaaday inta la ay keenay xanuunkaygii kaliyihii eberu noqday kaliya waa eber markay dhahayn waxa la yiri maamadan kaliyaheedu markii istaalkii dhaqmihii laga soo bixiyay maamadan kaliyaheedu computer la saaray maamadan in kaliya loo bixiyay ma kaliyaheedu dhaqmo ma lahan baalay aniga kaliya aan kula baxo iyo waxaan meel ku aadan ma haysan hantida yartahay xoogayaan cuni jiray ilmahayga ku biilan jiray hantida yartahay oo ayagu aan haystana intii hore istaalka ku jiray sanadka hore raacad 2 sano iyo barna hadda waa la dhaqayaa waxa weeye 2 sano iyo barkaas la dhaqayana dhib badan iyo qaliimo badan iyo waxyaalo badan baan ku soo arkay intaas waa qaliin dhibaato iyo dhib badan baa iga soo gaaray halkan waa laga galiyay lugta waa laga gashay gacmeelan laga galay halkan waa qaliin waxa waaye marka ilaahay ma hadii intaas hadda wali kulli hadda 3 jeer baa dhaqaniinkii la iga dhigay 3 jeer waa awood 3 jeer iska day hal mar aan awood waa iska bixin waay ilaahay baa awood waa maalintii $35 baa laga qaadaa $35 waay maalintii hadii lagu dhaqaa digfeer baa la igu dhaqaa maalintii $35 waay mar baan lacag la'aan dhowr jeer ka codsaday markay 2 bilood iyo siiyeen baa la igu soo celiyay waa la igu soo dalacay marka saa awgeeda ana codsada igu kaliftay islaamka aan awood waay haddaan lacag la'aanteeda iska helo dhaqnayga waa isaga samri lahaa marka haddaan iskana bixin waay lacagna waay deegaankana mana degani oo hadda guriga kuma lihi baalka la yiraahdo ehel aan ku tiirsanahay oo aan ku leeyahay ma jiro watahay maama Qatro waxay sheegtay in hantidii ay lahayd wax xoolihii ay lahayd ay iminka ceer ka tahay isla markaana ay ku baxeen iyada dhaqmadeeda in iminka aysan waxba haysan isla markaana xataa aysan awoodin in isbitaalka lacagtii dhaqmada inay iska bixiso
waxayna ummadda Soomaaliyeed ka codsatay inay soo caawiyaan isla markaana ay ka caawiyaan sidii ay ku heli lahayd kili oo loo sheegay in inta dalka Turkiga ay tagto isla markaana ay raadsato in kili loo geliyo waxay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dalka iyo dibadda inta joogta ay ka codsatay inay soo caawiyaan isla markaana ay u gurmadaan waxay igu yiraahdeen oo ay is yiraahdeen oo waxa jira kali hal lagu bixiyo oo wax ad yeeshaa maama kali in lagu bixiyo maahane wax kale xal aan ku mahaynay dhaheen wax kale dawaa wax kale xal ku mahaynay dhaheen xagee kali lagu bixinaa markaa ama Turki aad bay dhaheen ama Hindi aad meesha aadaysa aday ku taala laakiin Turki baana fiican bay ileeyeen ayagu laakiin Turki hal lagu bixiyo dhaheen Turki baa fiican saas ay amaanayaan kalidaasna in lagu bixiyo ma kaliyaha rijo male way dhaheen wax kaadiya ma dhigo baalka la yiraahdo masquul ma galo mar laba maalin markaan joogaan mar laga yaabaa saxaray yar oo beena inaa u galo waxaan rabaa dadweynaha Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed baan ahay dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan ilaahay baa caawimaad laakiin ayagu karaamkooda inay caawiyaan dal iyo dabad meel joogaanba kayga waa 8 23 78 43 Ismaaciil Aadan Bariis telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho. Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan Koongareeska dalka Mareykanka ayaa waxaa loo magacaabay xil muhiim ah. Warkan waxaa faafahintiisa inoo soo diray wariyahayaga Ayuub Aadan Xasan. xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Koongareeska dalka Mareykanka ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka guddiga hoosaadka awoodda u leh arrimaha Afrika iyo xuquuqda aadanaha. war ka soo baxay xafiiska xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa lagu sheegay in xilkan cusub maalintii Khamiista ahayd looga dhawaaqay Washington. magaca guddigan ayaa guddiga hoosaadka Afrika, caafimaadka adduunka iyo xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale ururada caalamiga. doorkeeda cusub Ilhaan ayaa waxa ay sheegtay in si gaar ah ay u daneynayso inay kormeerto arrimaha gargaarka caalamiga iyo siyaasadda dibadda ee qaaradda Afrika. Ilhaan ayaa hore ugu mid ahayd guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Koongareeska inkastoo dadka dhaleecaya ay hore ugu baaqeen in laga saarayo guddiga kadib hadallo si weyn ah loo dhaliilay oo ay jeedisay 2019 oo ku saabsanaa saameynta siyaasadeed ee Israa'iil ay ku leedahay Mareykanka. Ayuub Aadan Xasan, Soomaali Cable, Muqdisho. qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay ruuxii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanayseen telefishinka Soomaali Cable si gaar ah studiyiisa magaalada Nairobi. waxaana idin akhrinayay anigoo Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhammaan wariyaashiga la qayb qaatay tabinta warka dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.